waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina iyo qaabilada aad maanta xildhibaanada iyo senatarada iyo wasiiradaba soo dhaweynta aad noogu samayseen magaalada Muqdisho garoonka aad baan ugu faraxsanahay inaan dhaqdo kii ugu soo horeeyay iyadoo shir oo ka dhacayo waxa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1 2 3 4 ugu horeynaya taariikhda amniga iyo talaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadi ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi sameeyno bal shabaab iyo go'aanka laga gaar lahayo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aan lahayn hadda uun dadka ay sababulana oo loo qori qaado bal intii wixii la habeeyo dagaalkaas iyo sidii aan ujeedadiisa u gaar lahayn saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta waddanku ku jiro si aan uga gudbi lahayn in la gaaro oon isku tashano qof walba hadle wuxuu leeyahay Soomaalidu iyadoo isku tashato isku tashigan wuxuu ka